sidoo qaar waxaan geli doonaa dagaalka dowlad deegaanka Soomaalida xagoo maraya maanta dhimashada iyo dhaawac waa imisa beelaha dagaalka u dhaxeeya waa kuwama Leopolis miya dagaalka qayb qaatay arrintaas oo falqeyn doonaa dagaalka Eritrea iyo Ethiopia oo markan ka sii darayo kadib uu aruursigii ee markaas oo sii batay Eritrea oo sanad military iyo hub cusub soo bandhigtay iyo tababar cusub ee ciidamo soo xirtay arrintan oo falqeyn doonaa waxaan kaloo geli doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee koonfurta Soomaaliya oo markaas la sheegay iyadana dagaalkii inuu sii weynaaday howlgallo ka socda magaalada Muqdisho la sacanood oo markaas iyadana sanad military aad weyn soo bandhigtay barnaamij shirgare meel fog gaarsiiyay waxaan ku hormaraynaa xaaladii ugu dambeeyay deegaanka Shilaabo iyo deegaanada ku dhow ayaa markaas dagaal ka soo dhacay ka dhaceen labadii maalmood la soo dhaafay waxaan halkaasi ku dhintay 18 qofood in ka badan 20 iyo dhowr kalena oo ku dhaawacmay halkaasi waxaa ku dagaalamaya beelo walaalo ah oo markaas Soomaaliyeed kana soo kala jeeda beelaha Habargidir iyo Ogaadeen waxa la isku haysto lama garanayo kolba dadkan oo dagaal ka bilowday dad Remiya markaasi dagaalka waxa leeyahay uu weynaaday halkaas dhimashadii dhaawac aad u weyn ayaa jiray walow maanta xaaladdu ay degan tahay meedadkii dhaawacyadana la kala jiidanayo waxaa la sheegay in ciidamo Leopolis oo dhanka Shilaabo ka yimid in lagu arkay meedkooda oo ay ka qayb qaateen dagaalkaasi walow arrintaasi 100% aan la xaqiijin karin oo dadka deegaanka qaarkood ay leeyihiin ciidamo Leopolis ayaa dagaalka qayb qaatay marka xaaladdu dowlad deegaanka Soomaalida dagaal ay noqotay dagaalkana waa dagaal xuduudka dhanka xuduudka la wadaagta Soomaaliya dowlad deegaanka Soomaalida ayuu ka dhacay dadkana waxa wada Remi ah waxyaabo isku haysta kolba waa daaqsin iyo waxyaabo kale waxa la sheegay marka hore inay ka bilaabatay in beesha Habargidir ay dileen beesha Ogaadeen kadibna markaasi ayagana maalintii kale ay yimaadeen laba nin Ogaadeen ay dileen halkaas oo dagaalku toos oo uga bilowday marka dagaalku saas ku weynaaday ilaa iyo haddana waxa way xiisaddu way taagan tahay inkastoo dadkii hadda meedadkii dhaawacyada la kala qaaday waan ay socoto oo dad badan oo soo dhaxgalay ay jiraan arrintaas sidii lagu qaboojin lahaa muddooyinka la soo dhaafay waxaa jiray deegaanadaasi iyo ayaga ku dhowba in ay dagaal ka jireen oo maalmo dhaxaas Leopoliska iyo beesha Mariixan ayaa isku dhignaa oo hoggaanka nabadgelyada deegaanka la sacaano ayaa la dilay kadibna waa tifooda ay bilaawatay iyo kacdoonkii hub aruursiga tanna waa mid kale oo ka duwan oo markaas ayadana beelaha ay markaasi Habargidir iyo Ogaadeen u dhaxayso gaar ahaan beesha lagu magacaabo Bahgiri iyo markaasi beel ka tirsan beelaha Habargidir xaaladdu marka meel xun ay maraysaa inkastoo hadda dagaalkii oo istaagay hub aruursin uu wali jiro xaaladana saacad kasta la filan karo wixii ka soo kordhay ayadana halkaan ku soo gudbi doonaa waxaan aadaynaa dowladda Eritrea waxay soo bandhigtay ciidamo aad u tiro badan oo markaas tababaro u soo xirtay inay doonayso inay kaga hortagto duulaanka ay sheegtay dowladda Ethiopia inay ku soo tahay dhulkeeda waxay sheegeen inay cidna kaga yeesan doonaan dhulkooda inay difaacdaan cid kasta ku soo xadgudubtana ama Ethiopia ah ama qolo kale ha ahaatana inaysan markaa u istaagi doonin oo markaas cagta marin doonaan waxaa la leeyahay Abiy Ahmed in xaaladda hadda way ku jahwareersan tahay wuxuuna nafka raadinayaa cid dhexdhexaadisa ayuu raadinayaa ayaga Eritrea maadaama sida uu rabay wax u noqon waayeen hanjabaadda ayuu rabaa Abiy Ahmed inuu wax ku raadiyo oo dhowr mar oo hanjabay oo isku dayay inuu maran xabaabiyo qadiyada dalka Ethiopia bad baan helaynaa Soomaaliya ka rabnaa Eritrea ka rabnaa waxyaabihii qaylada oo qaylinayay wuxuu soo wada hadal Soomaaliya ka la gashay bad oo hadda badaa ku soo dhow haddana wuxuu yiri Eritrea haddana wada hadal gali doonto oo ogolaan doonto badeed in wada hadal laga galo taas marka Eritrea meesha sameeyna dagaal ayuu ku jawaabay hubkeedii iyo saanadada military iyo qalabkeedii la soo baxday kadibna xuduudaha ay la wadaagto gobolka Canfarta Tigreega iyo nimanka leeyahay Amxaarada ay saanad military ku qaybisay waxay marka ku adkaysatay inaysan marnaba gorgortan ka galeenin madax banaanidooda iyo dhulkooda iyo badooda intaba Abiy Ahmed markay xaalad sidaas noqotay oo jahwareer dareemay waxa uu isgaabiyay sababtoo haddii uu isgaabin Tigreeg ayaa markaas isaga ku dhacsan oo dagaal kula jirto kuma darsan karo inuu markaa haddana Amxaara la dagaalamo Tigreegna la dagaalamo Eritrea la dagaalamo awooddaas ma lahan Abiy Ahmed oo waxa ciidamada oo haysto waa ciidamo Oromo ah oo markaas tabar badan aan lahayn dadkana loogu tiro badnaan markaa dadka loogu sheego inuu 2 milyan oo Oromo ah oo tababaran oo haysto Oromadana xabadda markay dhacday nool meesha oo wajigiisa markaas oo qabta ayuu aadaa oo waa la yaqaanaa Oromada niman dagaal rabo ma ah marka Abiy hadda xaaladdu ku forortaa meel wax ka bilaawna uu laayahay cid marka wuxuu raadinayaa dowladda Soomaaliya la sheegay inay dhaxadinayso laakiin cid aad u dhaxadiso oo soo kala dhaxgasha asaga Eritrea u raadina waliba arrintaas 100% aan dhihi karin dowladda Soomaaliya waxa isku xilqaami kartaa maadaama ayadaba dagaal ay ku jirto oo kooxda AS iyo dowladda isku dhagan yihiin inaysan hadda suuragal u ahayn inay wax dhaxadiso ama doorkaasi ay isku xilqaanto maadaama howlo badan ay ku furan yihiin marka Abiy Ahmed go'doon siyaasadeed iyo mid dhaqaale inta uu ku jira xaaladda ay sida ku socotan waa mid markaas burbur u keenaysa dalka Ethiopia haddii aan markaas aqliga oo shaqeyn oo san Abiy Ahmed aqli ka duwan la imaanin dalka Ethiopia oo burburaya Eritrea oo guuleysanaysa waddankan waxaa qabsan doono Abyssiniinta nimanka la yiraahdo sida maxaa la yiraahdaa Amxaarada ama qoladan kale Tigreega asagana taas uu waxa maskaxdu ku hayaa laakiin qaabka waxaan uga dhex bixi lahaa ayuu laayahay
moogtahay siyaasadda markaad wax gasho ama xaaladda kugu xumaato qaab looga sarriibtay leedahay. qaabkii looga sarriibi lahana ma yaqaano, qaabka dadka la isugu dirana wuu yaqaana. wixii kasoo kordhay diyaargarowgaas dagaal iyo saanadas military laisku aruursanayo iyo bootada ee dowladda Ethiopia lasoo afjaray halkan mar walba ku daawan doontaan. waxaan aadaynaa dhanka ay koonfurta Soomaaliya waxaa jira howlgallo ciidamada dowladda ay sameynayaan saacadii lasoo dhaafay ayna ka sameeyeen magaalada Muqdisho maadaama shalay shaqaaqa ay ka dhacday oo markaas ku baadagoobayaan dadkii gaariga gubay ee shacabka ahaa ee bajaajlada xanaaqsaneed. waxaa kaloo jirta in foodo badan ay ka jirtay oo qof shacabana la dilay ee dad kalena la dhaawacay isla shalaba aaga Soona Kenya number 4 foodo ay ka dhacday. xaaladaas markii ay dhacday kadib waxaa la sheegay in dowladdu ay baadagoobayso dadkii gaarigaasi waxay inkastoo ninkii booliiska dhibaatada geystay ay gacanta kusoo dhigeen ayna sheegeen in sharciga markaasi ay la tiigsan doonaan, laakiin howlgalla ayaa weli socda, dadkii lagu baadigoobaya. dhan kale dowladda Soomaaliya waxay ciidamadeeda isugu geysay dhanka ay Shabeellaha Dhexe ayagoo sheegay in dagaal weyn ay la geli doonaan maxaa la yiraahdaa kooxda AS ee markaasi kusoo diyaar garowday Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. ayadana xaalad dagaalo aad u weyn ay halkaas ka jirto, wixii kasoo kordhay ayadana waa arki doonaa. buuraha Calmisgaad ciidamada Puntland ayaa ku cibaadaystay, inta badanna waxaa waye deegaanadii markaas kooxaas ay ku jirtay ee Daacishta ka dagaalamaysa intooda badan gacanta waxaa ku dhigay ciidamada Puntland. dhan kale haddaan aadno magaalada Laascaanood waxaa ka jira diyaargarow aad u weyn, waxaana la arkaya SC Khaatumo oo saanad military kusoo bandhigtay magaalada Laascaanood ayadoo sheegtay in deegaano badan ay markaasi gacanta ku dhigi doonaan. waxay sheegeen SC Khaatumo ayaga iyo Somaliland inaysan mar walba isdaawan doonin oo mar walba ay tahay in la kala baxo. waxay sheegeen in Somaliland ay aruursanayso diyaargarow ay ku jirto, saanada military ay la soo degaysa inay la socoto, mid hadda Ethiopia ay ku wareejisay inay jirto. waxyaabahaasoo dhan marka in ayaguna ka diyaargaroobeen, maantana wixii ka dambeeyana ay markaasi hadday xabad bilaawato ay tegi doonaan dhul aan dhulkooda ahayn. awal waxay dhaheen dhulkeena difaacanaynay, difaac keliyaan ku jirnay, laakiin hadda hadday xabad nagu soo bilaabato ma dhici doonto inaan dhulkeena joognay, waxaa dhici doonto inaan xuduudkeena ka tilaabno si aan markaas hadhow dhulkeena aan markaas u helno madax banaani, maadaama Somaliland ay naga leexan laadahay dhulkooda aan ugu tagaynaa ceeri gaaba iyo oog iyo caynaba la isku wareysanaa, markaas kadib waa barbarta geli karnaa. laakiin inta ka horeyso maalin dhulkeena in nagula soo gabgabsado suuragal ma ah, dagaal ayaana mar walba diyaar u nahay. marka saanad military oo tiro badan ayay soo bandhigeen. Cabdiqaadir Firdhiin waxaa leeyahay markaan wuxuu ku tashanayaa maadaama heshiis jiray dhanka ay shilaabo ka socday lagu kala kacay oo loo heshiin waayey, haddana xaaladdu ay taagan tahay in mar walba dagaal loo diyaar garoobayo. xaaladahaas isdiidan oo dhan halkan ay kusoo gudbudana waxay kasoo kordho, in kastoo Somaliland naftigeeda ay leedahay annagu dagaal ayaan diyaar u nahay, wada hadal iyo nabad dambana ma jirto ilaa xuduudkeena aan soo xirno oo yoocada iyo garowa aan tagno, wax ka horeeyo oo aan markaasi dhegaysanayno ma jirto. wixii barnaamijyada kasoo kordha halkan ay kusoo gudbudana barnaamij share gareemel gaarsiiya. inta barnaamijkan barnaamij limid kulmi doona waxaa leenahay fi amaan illah.